Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena Ramadan English Series. Maalinta waa maalintii 23aad weeyaan, waxaana ciwaan u ah maanta Personal Growth and Spiritual Reflection ayaa ciwaan u ah. Mar kale Ramadan Kariim, magaciiguna Ustaad Maxamuud Axmed Xaaji. Haddii aad xiisanayso koorsooyinkayga Englishka ee applicationka Wax Kabar Academy ku bixiyo, waxaan kugu casuumayaa in applicationka soo download garaysatid, wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa insha Allah. aanu gudubna markaa su-aasheena koowaad ama jumladeena koowaad ayaanu gudbaynaa. Ramadan has been a period of immense personal and spiritual growth for me. Ramadaanku wuxuu ii ahaay muddo ama period waa muddo immense personal and spiritual growth, aad iyo aad isbedel shakhsiyadeed iyo mid diimeed oo nafeed igu sameeyey, aad iyo aadna u baaxad weyn. Immense marka wax aad weyn weeyaan. Wuxuu igu sameeyey bisha Ramadaanku waxay igu sameysaa isbedel shakhsiyadeed iyo mid diimeed oo aad iyo aad u weyn. This Ramadan has been a period of immense personal and spiritual growth for me. Marka waxaan baranay erayga immense ayaan baranay. Immense micnaheedu waxa weeyaan aad iyo aad u weyn weeyaan, aad iyo aad u badan ama aad iyo aad u weyn. Personal growth waxa weeyaan shakhsi ahaan kobcid shakhsiyeed, iyo waxaa kaloo ayadana jirto spiritual growth, kobcid diimeed, iimaan inuu kuu ziyaado oo kale iyo waxaasoo kale weeyaan. Horumar shakhsiyadeed weeyaan, improving yourself. haddii aad applicationka igala socoto, codkaani hoos ayuu kuugu diyaarsan yahay, waad dhegeysan doontaa. I'm reflecting on the habits I want to keep even after the month is over. I'm reflecting on the habits that I want to keep even after the month is over. Waxaan dib u fiirinayaa ama dib u eegoyaa ama aan ka fikirayaa dabeecadaha habitska, caadooyinka wanaagsanay ee aan rabo inaan sii wado ama aan sii joogteeyo bisha Ramadaan markay dhamaato kadib. Bisha Ramadaan markay ka dhamaato kadib. Marka waxaan baranay habits. Habits waxa weeyaan waa caado weeyaan. Caadooyinka inta badan Ramadaanku caadooyin wanaagsan ayuu dadka u keenaa soo maahan, laakiin dhibaatada dhacdaa waxay tahay caadooyinkaasi wanaagsan markay bisha Ramadaan dhamaato waa istaagayaan. Bisha Ramadaan waxaa arkaysaa masaajidka salaada subax oo kale in la buuxo, salaadaha kale aad masaajidka dadka u soo wada aadaan, laakiin markii Ramadaanka dhamaado waxa weeyaan way dhamaanayaan. So marka waxaa leeyahay marka waxaan isku dayayaa caadooyinkii wanaagsan ee aan abuurtay ee aan u baahanahay inaan sii keedsado ama sii joogteeyo bisha Ramadaan marka ay dhamaato. Bisha Ramadaan markay dhamaato. Waxaan baranay habits ayaan baranay. Qaybta commenti ku soo qor caadooyin ama habitskaaga ama waxyaabaha habitka ku ah. Month is over. Bishu way dhamaatay. Bishu way dhamaatay. Soo ma bishu dhamaato markay bisha dhamaato ama bisha ay dhamaato. All right, labadaas eray ayaan baranay. Jumlada saddexaad ayaan u gudbaynaa. It's important to nourish the soul just as much as we take care of our bodies. Waxaa muhiim u ah inaan naftana quudino. Soul waxa weeyaan ruuxda weeyaan. Ruuxda. Soul waxa weeyaan ruuxda ama qalbiga weeyaan. Inaan ayadana quudino oo aan nafaqeyno. Nourish marka waxa weeyaan quudin ama nafaqeyn weeyaan. Inaan wax nafaqa siisid oo aad take care garaysid weeyaan. It's important to nourish the soul just as much as we take care of our bodies. Inta aan jirkeena xifdino oo aan ku dadaalno in la mid ayaan noogala baahan yahay ruuxdeena iyo qalbigeena inaan ku dadaalno. Inaan qalbigeena ku dadaalno. So marka waxaan baranay nourish the soul ayaan baranay. Waa soul waxa weeyaan waa ruuxda weeyaan. Ruuxda inaan quudino. Nourish waa quudin ama nafaqeyn weeyaan. qaybta commentiga ku soo qor adigoo isticmaalayo erayga nourish. Qasab ma ahan inaad soul raaciso, wax kale waad isticmaali karaysaa. All right, take care of waxa weeyaan daryeelid weeyaan ama ilaalin ama ka taxadirid. Take care of. qaybta commentiga ayadana ku soo qor, waa very easy weeyaan. Take care jumla ahaan adigoo u isticmaalayo. Si fiican ayaa u fahanteen filaya. Applicationka haddii aadan soo dejisanin quiz-kani kama shaqayn karaysid. Haddii aad soo dejisatana waad ka shaqayn doontaa. cashirka halkan ayaan ku joojinayaa. U diyaar garooba casharada xigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.